waxaa soo ilaaday qeybtii cayaaraha waxaa loo soo gudbiyey qeybtii labaad ama wejiga labaad ee cashada. Waxaa kasoo qeyb galay cayaartooydii barasmaadka iyo qeybta saxaafadda, mas-uuliyiin kala duwan oo runtii khudbado qiimo badan kasoo jeediyey. Runtii waxaa goobta ku sugnaa mudane musharax madaxweyne maxamed aadan koofi oo runtii khudbado kasoo jeediyey qodobka cayshadatan. dhammaantiin saaxiibada sharafta badan sida milgaha quruxda badan dhammaan tiimka ilaahay habeen wanaagsan caawa waxay noo tahay sharaf weyn in halka kusoo dhaweyno maanta ahna madaxweynaha mustaqbalka ee galmudug doctor maxamed jimcaale aadan koofi oo maalmahan ku ahaa marti ee magaalada london. runtii qabaqaabadii maanta ciyaartii dhacday iyo sidoo kale caawa cusmaandaaba aad ugu mahad celinayna tiimka xaafadda london oo dhan khaasatan xaafadda Wembley oo runtii waqti ku bixiyey gudoomiye xuseen deeq oo waqti badan ku bixiyay arrintaas sidee u dhici lahayd isaga ayaa kusoo dhaweynaya mikrofoonka dhammaystirtay. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ومهد الله ما اسكله انت تسكن كيني انا عافماد قبله runtii waa farxad inaan mar kale aan kusoo dhaweyno magaalada London xaafadda Wembley madaxweynaha mustaqbalka galmudug Mr. محمد آدم جمعالي كوفي kusoo dhawo London. waxa weeye waa taariikh in isboortiya oo caawad la soo ciyaaray kubad la taagan musharax. waxa weeye isboortigu waxay tusaysaa isbeddelka soo socda. marka horta ku waxaan leeyahay ilaahay waxaan ka rajaynayaa guul howl adag weeye insha Allah ilaahayna kuu fududeeyo hadduu ilaahay nafta ku daayo musharax aad tahay ilaahay naga raaca galo. dhammaan akhyaarta reer Wembley iyo asxaabteena kale aan wada Wembley laakiin London annagu dhan waxaan kuusoo dhaweynayaa gacmo furan. waxaan ku leenahay always noo soo noqo. waxaa tiri ilaa iyo waqtigeeda la jooga hadda maalin walba waxaa noo tahay casuumaad dhinaca isboortiga ilaa intaad ka dhacayso kubad anaga dala cayaaraysa insha allahu tacaala. marka kolley waa soo gaabsanaynaa. marka maxabuub baan kusoo dhaweynaya hadda maxabuub. بسم الله الرحمن الرحيم. دمان والله شرفت اللي عاو ماشي سوق دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلابات وحنا عاو سولوين إننا شرف وين نوع دمانتين غير لندن غير ويمبلي مركز تبع كود مالي ولكني ومشرحة إن شاء الله تعالى من سبورت هدارك أو ميل صوغلي الباب علنا يا مسكين. reer galmudug waxaan kula dardaarmayaa fursadda ay sanadkan helayaan waa haddii ay doortaan fursad weyn ay heli doonaan. marka weli ma arkin inta madaxweyne soo maray nin oo isboortiga sanadkan waxay ku qaadeen gobolka laakiin wixii ka dambeeyo waa dardarayaan gobolka waxay la tartamayaan Kismaayo dhulkaas ay tartamayaan. haddaad baa macallin alxamdulillah haddana waxaan soo dhaweynayaa the legend of the legend. أنا نفتكر the legend على ليلة وهذا كور مباشر كوفي نصيب حاول ليلة فوتبول لعبات باسكت بول فولي بول ولي بينكو سكت حسين أبو نور أبو عشان الفرح البطل أو طلق النيل ولكني مشرح ويني يقول مدوك محمد آدم معالي كوفي كلي كوفي ونن سبورتي نتاس بأيتين كان فوق الحمر مرة تجمع عيال كان جايني وينه عشاء قال وني مقايد له شيء بطلك الحمد لله ونن لا يروح وآدي فعل مرة وربحنتي سي محمد يو رجالي أي نسوق بيني مودي أنا waxaan dhihi lahaa kulay heer mudug maxambuwa dhimay warka waa nin dhalinyaro ah oo loo baahan yahay. markii hore dad waxaa soo maray odayaal ah 70 jir iyo 60 jir nin shabaab ah ayaa soo maraya. waxaan leeyahay lagu dawfeelko insha Allah taala ilaahay ma waxaan ku barinaynaa in uu guuleysto insha Allah taala. hadda waxaan ku barinaynaa walaalkay diini وكر waxaa sharaf ii ah caawo howlaha hore way ka duwan yihiin. isku maadka hore wuu ka duwan yahay. caawa waxaan nasiib u yeelanay maasha Allah ilaaha mahad iska leh. midda labaad waxaa mahad labaad iska leh akhyaarta noo soo habaysay sida sharafta leh inaan maanta meeshaan isugu imaano. aniga ahaan waxaan dhihi karaa khaasatan maxamed rajaal iyo muudey dad waxaa waaye isku xir ah walaalo oo si fiican isku wada baranay isku xir ah maasha Allah qalbi wanaagsan aad iyo aad u mahadsantihiin marka hore.
mideeda labaad musharaxa maxamed aadan jimcaale maxamed koofi aad iyo aad waxaa waaye maaragtay xalana waa tegay khudbadii soo dhaweyntii kambeynka waxaa waaye maaragtay horta ilaahay ha noo sahlo isagana ilaahay ha u fududeeyo waddankeena nabad ilaaha nooga dhigo laakiin waxaa waaye muddo dheer ma arag khudbaddaan dhegaysanay khudbo soo jiidasho leh lagu qanci karo marxalad leh waddankii oo niyadda laga gooyey soo laabo karo ayay ahayd ilaahayna ma aragtay waxaan ugu baryayaa ma aragtay inuu ilaahay u fududeeyo waddo dheer aad sugayso soomaali ma fududo ilaahayna ma aragtay qalbiyadayna ha isku keen furo dad fahmana ilaahay ha naga dhigo inaan nahay ujeedada maanta waxaa waaye haddaayay ma aragtay maxamed wuxuuna xasuusiyey waddankii dadkii annaga waana dhaaftay maxaa dadka naga haray loo qaban karaa waxyaabaha ilaa hadda aan isku ceelkaambiya aniga waxay ka mid ahayd soomaaliya markaan kasoo tegaynay ilaa iyo hadda goormay adoo shaalay macawiis wata xaafadda u laaban doontaa adoo dariska xaafadda yaqaan hebel iyo hebel iyo hebel ilaa haddana laabano rajada aan lahayn dad waaweynaa lasii noqonoyaa cilmihiya waddanka waxaa waaye meelaha isugu tagno oo maaragtay magacyadeena iyo sharafteena inaa laga yaqaano ay tahay intaasaanu kusoo gabagabeynayaa aad iyo aad aan u mahadsantihiin marka kabtan aadan ayaan kusoo wareejinaa horta ilaah mahadle oo maanta la kulmay waxaa kaloo maanta ana sharaf ii ah inaan kasoo qayb galo xafladda walaalkii maxamed oo musharax ah adiga kale waxaa kasoo jeedaa meesha wax ka marka waa ku faraxsanaa nin dhalinyaro oo waaqica la socda wax fahmaayo inuu kasoo qayb galo tartanka marka waxaan leeyahay ilaahay kula garab galo waanu ku faraxsannahay waxaan ku wajahayna guul insha allah aadan saaxiibkay maba ogeyn inuu meesha kasoo jeedo maraan jilaafeyn gaaray oo meesha socod ku weyn lahaa marka hadda kadib inaan iska hubiyo waa garoon marka codka aan ka rabo inaan iska dhaqaalaysto marka horta aad baa umahadsantihiin runtii bahda isboortiga reer UK aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa inaad xalay ilaa markii aan garoonka kasoo degay ilaa caawa aad garabkayga taagantihiin wax weyn ayay tahay aniga ay ii muujinaysaa ragga akhyaarta ah oo halkan magacyadooda laga sheegay ka hadashay intaan aqaano oo markaan yaraa daawan jiray sida Elias iyo Bisuke aad iyo aad dareen ii gelinaysaa iyo xasuusinaysaa macnaha isboortigu leeyahay dadka isboortiga ahna mar walba waa iska qabnay haddana markii ugu dambeysay oo abaabulida qaranka wixiisu qaybaan ka ahayn abaabulida oo dhalinyaradii dibadda laga keenay oo wadamada dibadda laga keenay aruurintoodii isu keenidoodii howlahaas xoog badana inaga galay intaas kuma ekaan waxtaa qaranka waa raaci jiray waxaan dhowr ciyaar ayaan la tagnay inkastoo meelaha qaar aan daro kala nimin meelaha qaarna guulaan ka keenay laakiin si guud waxaan dareemaa qaranku inuu soo dhismay hadda heerarkiisa kala duwan marka UK runtii waxaa iyakiin muuqanaysaa ilbaxnimo waxaa iyakiin muuqan dareen isboorti iyo iyakiin muuqda waxaan rajaynayaa aragtidaas iyo talooyinka caawa aan isweydaarsanana in dalkii lagu celiyo oo aynaan dalkii sidaas uga wada tegin oo dalkii weli dadka Soomaaliyeed ku nool innagana waa asalkeena waa meesha loo wada noqon doono in aad ilaa ku fiirsaan oo ka soo jeedinaya marka waxaa ogaanaysaan meel la kala leeyahay maaha waa meel buuga ka codayn karo waa meel abati ka codayn karo waa meel axmed ka codayn karo waa meel cid walba meeshaan fadhiso ay ka codaynayso haddii alla yidhaahdo aniga waxaad igu ogtihiin weligii inaan ahaado qofkaad hadda aad taqaaniin inaan ahaado oo haddaan xilta waanan isbedelin oo cudurka iyo waalida dadka markay xilalka tagaan kuraas ku fadhiistaan
ku dhaca inaan ka badbaadan rajeynayo haddii aan leeyahay haddaan dareemo inaan markaan iska dareemo inaan sii leexanayana waxaan ku dadaali doonaa inaan ummadda ka hor leexdo haddii aan leeyahay nin ma jecli meel qeexeed inaan fadhiyo meel aan qabad lahayn ma jecli inaan fadhiyo xilaalka maba raadin jirin kan laakiin waxaan islahaa dadkaa xisataa intaanan aniga qaadan ama aanan go-aankaan qaadanin waxaan la hadlay dhowr qofood oo aan islahaa waa kaa mudan yihin oo nigi meesha aan kala shaqayn dhammaantood waa ka cudurdaantay marka waxaan dareemay waajib saasaa i wada xilli xoolo doon marka waxaan rabnaa in dii kuraastaas la tago ee xalka xalka uu qayb ka ahaado kusii noqdo mid lagu xalliyo haddii aan ma rabo inaan isuud labisto iska xaragoodo iska qosla insha allah saasaa inoo ballana waana invite garaysan tihiin haddii halkaas aan tago dhammaantiin haddii gelmudugna hadda anaa ka imid waxa waaye garoombay leedahay oo wada roogii leh oo lagu ciyaaro jaasmaro fiican bay leedahay nabadaa ka jirta oo lagu dhaqdhaqaaqi karo challengeska kalena insha allah xalkeeda oo ka wada shaqaynayna ayaan laga cabsanin insha allah waxa ay leeyihiin hoos ugu yaaleen sidaan u sheego oo la soo saari doonaa ما شاء الله aad baa